degdeg ah oo aan idin baahinayno ayaa saddex qarax oo is xigxigay ayaa goor dhow waxay ka dhaceen agagaarka kilometer 4 gaar ahaan qaraxa hore ayaa sida dad goobjoogayaal ah ay keenan u sheegeen waxa lagu weeraray derbiga hotelka Saxafi ee Muqdisho oo u dhow xarunta CID-da qarax labaad ayaana isla goobta ka dhacay sida dadka halkaas ku soo inoo sheegeen halka qarax saddexaadna meel aan sidaasi uga fogeyn halka labada qarax ee hore ay ka dhaceen oo isna ka dhacay dad ayaa ku geeriyooday halkaasi oo meydad ayaa goobta daadsan gaadiidka ambulasta ayaa iyaguna waxay yihiin kuwa fulinaya adeega gurmadka degdega ah dhaawacyo badan ayaa ay gaadiidku qaadeen sida wariyaasha keenan oo goobta ku sugan qaarkood ay noo soo sheegeen dhaawacyada qaar ayaa ah kuwa haatan durba la gaarsiiyay isbitaalada Muqdisho mahad maxamed cismaan waxa uu ka mid yahay dhaawacyada durba gargaarka caafimaad loo fidiyay isbitaalada la gaarsiiyay bajaajle ayaa uu yahay gabar uu ku waday bajaajtana waa ay geeriyootay isagiina waa dhaawac waraysigan ayaan kala yeeshay qaraxa koowaad ayaa uu gobjoog u ahaa waxaan soo dhaafay kabrada jaad ee lambar 4 waxaan ku soo dhawaayay dhanka uu ka xiran yahay CAD meesha yar gilmaan soo gelin lugta lama soo gelin haye meesha uu qaraxa ka dhacay waa Saxafi meesha albaabka laga raray wili wuxuu ka dhacay meeshii gaariga weyn isku qarxi jiray hadda laani waxa waaye dhan god way markino marka ay dhankooda aad u badan Saxafi meesha albaabka laga raray waa god waan gartay godka yar oo galay wuxuu isku dhigay derbiga haye derbiga markuu ku dhagay gaariga cabaar oo ninka la diray hore u qaadaa gaariga waa bixi waayay waa dhinac uu dhaqaaqi waayay haye ilaa amarkiis gabadhii saarno hadda dhimataan nidaamka waxaan gaarigan waa isqarxira baan fila waayo gaariga jaamna kuma jiro derbiyoonu ku oo isku xoogaa haye naga carrifiyay dhahay waan carray ada 4 mooto camal ah ku dhaafay oo hal seedan isla marayna seedka laandigana way xiran yahay CID marka aan dhaafo oo qaraxa gadaal asoo soo baxay ay ugu dambeysay qaraxa meesha soo ku dhacay qaraxa kood halka uu ka dhacay adigu marka maxaa ku gaaray indhahaadu marka qaraxa uu dhacay maxay qabteen wallahi waa burbur aad farabadan waa ka dhacay meesha bajaaj waa u badnay maadaama seedkiisa aad loo yaray seedkan CID ya barnaamijka markaan sheegay waayo seedkiisa gaari yar oo aan isdhahayo oo weyd waayo oo gaariyaasha yar ka dambeeyay wili wuxuu soo maray meesha hadda albaabka Saxafi laga soo baxo dhanka laamiga birta ku taalo dhankaas oo uu soo maray oo la sinay waayahay qaraxa labaad baa dhacay adigu xageed joogto qaraxa markuu dhacay qaraxa labaad markuu dhacay dhaawac aan hayo waxaan taaganahay laamiyaraha soobe gabadhiyo meedan wada marka gabadha dooday marka kasoo dadka oo dhintay ma aragtay wallahi intii iga dambeysay bajaajii aniga bisaan ka soo baxnay intii iga dambeysay dhan waa fiirinay dhaawac inta ah dadkii ugu sameeyay aniga hal bajaaj ka soo baxnay meesha waxaan aan ka soo bixin ilaa hay ugu dhibanay ciidanka qaraxa markuu dhacay qaraxi labaad intuu san dhaceen horta xabadii waxay u bilaabeen saddex cabdibile ahaayeen saddexda cabdibile wili waxay ahaayeen cabdibilayaasha ku qoran booliska ku qoran yahay waytka oo hadda rijiga ay mariyaan waayahay adigu marka qaraxyada labada qarax u horeysay marka ay dhacayeen halkaasi baad joogtay dadka qaar waxay leeyihiin qaraxa koowaad CID buu ka dhacay marka waxaad leedahay Soomaan qaraxa koowaad waxa uu ka dhacay halka loo yaqaan hotel Saxafi iridkii hore qarax labaadna waxa uu ka dhacay laamiyaraha wili adqani maanta waa meel adduun ida xadisa kada waa ida tumina qaana iyo ida wacd aqlaf ilaahi kitaab ku soo aroori hadii albaabka meesha laga bedelin oo ka dhacay anina kuma dhaawacmin oo isbitaalka la joogay waa deynaan ahay qaraxa koowaad warka wuxuu ka dhacay hotel Saxafi kan labaadna waxa uu ka dhacay laamiyaraha soo meesha laga raray albaabka meesha laga raro inuu isku dhajiyay wili ninkaas darawal muusanaya kan labaadna garaawo soo qaaday kan labaad ma aan sheegi karin waxaan taaganahay meesha habarta ee maamooyinka ilbaha ku gadaan oo laamiya dhankii seedkan jira mootada waa iga burbursan tahay wili waxaan xasuustaa hooyadii asuu soo wacay markaan soo wacay aan dhahoy dan isarkiina maanta waa meel adduun wax dhibaato ma lahan kan saddexaadna war ma haysaa maya intaas adduun wax war uma laakiin meesha in lagu baaba'ay qaraxi koowaad anigina lugteeda aan kula soo baxay oo mootadii ay iga burbursan tahay gabadhii aan wadana Ali Raxme ay dhimatay wili waxaa xataa gabadhii aan ugu tagay xataa bajaaji meesha dadka kaasi waxa uu ahaa mid kamid ah dadka ku dhaawacmay qaraxa hore ee ka dhacay amaba kamid ah saddexda qarax ee maanta ama gelinka dambe ee galabta ka dhacay Muqdisho dadka waxaa si toos ah ugu jira oo halka qaraxyadu ay ka dhaceen haatan ku sugan wariyaheena
cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan waxa uu ku sugan yahay meel aan ka fogin halka qaraxyadu ka dhaceen. cabdiwahaab bal soo dhawow oo aniga dhegeystayaashaba waxaad noo sharaxdaa halka qaraxyadu ay ka dhaceen, sharaxaad guud naga sii, haatanna xaaladdu waa sidee? cabdiqani aad iyo aad u mahadsan tahay. qarax waa 3 qarax, laba ka mid qaraxyadu waxay ka dhaceen CID-da horteeda. qarax saddexaad ayaa dhacay markii labadaas qarax dhaceen kadib. qarax saddexaad ayaa inta badan dhaawac isagu u dhiisa geysay. cabdiqani 14 qof in ka badan oo dhigeeriya aniga gacantayda ka tiriyay. dad badan oo goobjoogayaal oo aan la hadlayn waxa ii sheegeen in dhimashadu ilaa iyo ay gaarayso 30 qof qaarkood. waxaa sidoo kale aan la hadlayn goobjoogayaal oo aan wareysay dad sidoo kale qof bajaajla ku waday dad. marka khasaaro badan ayaa kullayso hadda ii muuqda, welina ciidamadii ammaanka ayaa jooga. sidaa daraadeed hadda waxaan la jooga cabdiqani mid ka mid a gabdhaha haweeney dhaawac uu ku gaaray bal qaraxa. marka waxaan weydiinayaa siday wax u dhaceen kusoo dhaab wareedi kulmiye. walaal saad wax u jeedid waaye meeshaan anagoo taagan saddex qaraxo degdeg iska daba dhacday. waxa dabiro soo dhacdhacay waxaas haddana gaaran dadka sida hadda u jeedidna waa waran yihiin. waayahay adii dhimasho dhaawac maxaad aragtay? wallahi wax badan hadda u jeedaa horteena ka muuqdo oo dad badan oo googo'an wixii baabuurta saarnaay iyo wixii mooto saarnaay ma la kala sheegi karo. hadda meesha dhibaato xoog lahaa ka dhacday. waayahay qaraxa adiga wax kaa soo gaareen labaad miya maskii ugu dambe maskii saddexaad? kii ugu horeeya waaye aniga bir miya waxbaa i galay markaa laamigan taagnaa saana usoo goynayay. waayahay cabdiwahaab oo bir oo soo haadayo. kii labaad waa kii kaleetana uuradiisaana qarisay. marka waxa meeshaan ka dhaca qadar ilaahay waa ilaahay noo dhigtaa. waa sidaad maqlaysid cabdiqani waa qof goobjooga ah haweeney ah oo qaraxa kii ugu horreysay sida maqlaysid dhaawac uu ku soo gaaray. marka xaalka meesha waa sida dabcan cabdiwahaab haddii aad i maqasho waxaad weli hadda lama koobi karo cabdiqani. cabdiwahaab haddii aad i maqasho waxaad noo sharaxdaa qaraxa koowaad halka uu sida gaarka uga dhacay, kan labaad iyo sidoo kale kan saddexaadba goobaha ay sida gaarka uga dhaceen dhegeystayaasha u sharax. cabdiqani aad baad u mahadsan tahay. horta waxaa xusid mudan cabdiqani saddexdaba hal meel ayay ka wada dhaceenba maba kala dheera. marka dhammaantood hal meel. qaraxa ugu dambeeyay saddexaad markii dadka isku soo aruureen oo ambalaasida yimaadeen oo dhaawacyadii la rabay in la qaado ayaa cabdiqani ayuu dhacay. kaasi dabcan khasaare inta badan kaas uu geystay. gebi ahaanbana meesha waa meel burburtay. marka dhammaantood waxa ay ka dhaceen CID-da horteeda. sida aad hadda maqlaysid dabcan gaadiidkii ayaa weli dhaawacii daabulaya. marka xaaladdu waa sidaas. halkaasay wax marayaan. halkay wax ka dhaceen waa CID-da ilaa iyo muqdisho hotel oo markii aad joogto argada ee lambar 4. marka sidaas waxay yihiin cabdiqani. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa waryaheena cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan oo ku sugan halka qaraxyadu ay ka dhaceen u dhow isgoyska kilomitr 4 ee muqdisho, si gaar ahna derbiga hotelka saxafi ee muqdisho. wararka ayaa isa soo talaya qaraxyada ku aadan KNN. dad la hadlay oo ku sugan hotelka saxafi waxay noo sheegeen in ciidamada ammaanka ay toogteen ilaa iyo 4 qof oo hubaysnaa lana amaba isku dayay inay gudaha hotelka u galaan. weerar ayaa uu ahaa 3 gaarina sida aad wariyaheenna uu inoo sheegay aad ku dhageysateenba. halka qaraxa koowaad uu ka dhacay ayay gaadiidku amaba 3 qaraxba ka dhaceen.